Okay, soo dhawow. Hi. Marxaba, waxaan muuqtaa su'aal. How Islam Maxay tahay sees aragtida if islaamku a ka qabo qof person aan diin is lahayn laakiinse ku without faraxsan religion, noloshiisa? but he is happy Si and mandiqi ah, satisfied waxa to suurtagal ah his inaan life? rumayno qofka faraxsan In inuusan logically, noqon we can karin believe qof that dambiile a ah. happy person will not easy to getting a criminal. The brother Walaalkiin said that if wuxuuna a person weydiiyey is happy su'aal in ah, life, he will not insaanku become haddii uu criminal. faraxsan yahay noloshiisa uu ku Many faraxsan yahay criminals become dambiile ma happy. noqon karo. Dad badan oo dambiilayaal ah ayaa I disagree waxa with your iyagu philosophy. faraxsan. There's no Anigu waan philosophy that a mucaaradsanhay person who's falsafadaada. happy in Ma life will jirto not falsafad become dhehayso criminal. qofka haddii A uu person noloshiisa becomes ku a criminal faraxsan and is yahay happy. dambiile As ma far noqon as the karo. basic question is, Insaanku what does dambi uu Islam have galaa, to say about sidaas ay if tahayna a wuu person who faraxsan does yahay. not believe Su'aasha in religion? ra'iisiga ama ugu weyn waxay What tahay is the ood i definition of religion weydiisay is waa important. maxay ra'yiga Everyone has islaamka qofka certain way aan of life. badiin aaminsanayn. Muhiimaddu waxay tahay Religion by diin maxaa la definition yiraahdaa? means Qof kasta wuxuu a way leeyahay of nooc life. nolosha ka mid ah oo mucayan ah. Everyone has Diinta certain way tacriifkeedu of waa life. nooc He may nolosha not ah. believe in Qof God kasta that waxaa agtiisa differently. ah nooc nolosha ah oo But mucayan ah everyone has oo a gaar ah. certain way of life. Laakiinse And iimaan that way la'aanta of oo life, if ilaahay it qofku matches with the rumaysnayn Quran, it is waa fine. arrin kale. But everyone has Laakiinse a qof certain kasta way wuxuu of life. leeyahay nooc And nolosha that way of ka mid life, ah oo if it mucayan ah. matches with the Quran, Nooca it is nolosha correct. kaasi oo Therefore, waafaqsan follow the way qur-aanka of waa life mid as saxiix ah. prescribed by our Waxaa waajiba Creator, inaan raacno Allah subhanahu nooca wa nolosha ta'ala. ah kaasi oo Quran noo says in tilmaamay Surah Allihiina Al-Imran, abuuray chapter 3, verse Allah number 19, subxaanahu wa Inna tacaala. dina inda Allahi ilaahay al-Islam. wuxuu qur-aanka ku The leeyahay only religion, suuradda the aali only way of cimraan life waa suuradda accepted saddexaad in the aayadda sight of raqamkeedu Allah yahay is 9 iyo 10. Islam. diintu Islam means submitting your will to diintu Almighty God ilaahay and agtiisa following the waa commandments in islaamka. the Quran. This is the only way that you can acquire, islaamka only waxaa way loola that you can jeedaa u acquire, only quduucidda way that you can iraadadaada acquire, ilaahay only way subxaanahu wa that you tacaala can aad u acquire, quduucday only way inaad that you raacdo can acquire, only way amarada that you can ilaahay acquire, only qur-aanka way that ku you can sheegay. acquire, only way that waa you can midaasi acquire, only dariiqada way that you keliya can ee kuu acquire, only way that suurtagelinaysa you inaad can ku hesho acquire, nabad only way that iyo you can weliba acquire, waddada only way ah that you can u acquire, quduucidda only way that you iraadadaada can ilaahay acquire, only subxaanahu way wa that you tacaala can acquire aad u peace quduucdo. by submitting your will ilaahay to wuxuu ku Almighty leeyahay God. qur-aanka And suuradda Allah says al-cimraan in waa the suuradda Quran, in Surah saddexaad Imran, chapter 6, verse aayadda 85, raqamkeedu yahay if you desire 85 and practice any other religion qofkii besides Islam, dalba it will never be diin accepted aan of ahayn you, diinta and islaamka in the lagama aqbali hereafter, doono maalinta aakhirana wuxuu ka mid noqon doonaa and kuwa in the khasaara. hereafter you'd be among the losers. Hope that answers your waxaan question. rajaynayaa inaan Thank you. su-aashaada ka jawaabo. mahadsanid.